maansadaas marwa sababaha ku timi iyo waqtiga ay curatay maansada marwa waxa curatayna 2008 ayay curatay kadib walow maansadaasna wax ku soo baxday inaan xiriirka bedelay marka inaan ku sii dheeraado wax faahfaahinayna inta in ka badan si faahfaahiyo ma jecli laakiin maansada ayaan si wacan idin la wadaagi doonaa marka maansada marwa adiga socota maansada marwa qudheedu aniga socotaa waa sabootin mar waa u ducayn mar inta quruxdeedii baa lagu tilmaamayaa mar qaybo badan bay isu fasiraysaa marka iyada is fasiraysaa ayay idinkeeda daawadayaasha marka waxay oranaysaa adaa xiska maamulo qalbiga dhex mushaaxayo qudhani kugu tahay mabsuud quluubta adaa mulkiyay kuma iracay caashaqo haddaan ka maarmi karin habeenkaad maqan tahay codkaaga dhagu maqlayn malaha hurdadiba macaan mug iyo miisaan aqliga adaa u sitoo marlay qof baan ku matali karayn maanshe qurux iyo milgana mawlaan kugu simin makhluuq xishoodkaaga dhigay macsuul waxaa mudan maamadii marway ku barbaariso ka dhigatay meelo badan laxaad meel lagu tagiyo marinka guusha taho dibta tahay qayb ka mid ah haweenka adaa mulkiyay midabka ugu quruxda badan casaan maariin xigo masciideed lagu matalo marway adiga hantiyay intii suugaan mug weyn amaba aaraar macaan naxwiya geeraar macna leh magaca lagu daray haween adaa gidigood ka mudan muuqaal aragtina ka wacan adaa kasha muxubadiyo jacaylkan ku miisayo magaabi iyo yidhi xubbiga adaa maalin iyo aleyn qalbigu kuu muhanayaa adduunkan halkan marana muuqaalkaaga horyahay nolosha micnaheedii ducaan midigtaada dhigay ha kula jira mawluhuna wixii ifka murugaliyo adduunyada ciidaha mudan maankaagu wuxuu tabana dhibaato adoo u marin si fudud mulkiyo u hano haddii aynaan ismudan ruuxuu qalin idin mideeyo calafku marwo kaaga dhigo midkaad ku mabsuudi leh allaha mawlii ka yeel mas-uuliyadiiyo xilkana macbuudka kugu asturo maansada marwana way tahay